الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. تفسير القرآن الكريم سورة النمل آيات تضبع آيات لواتي تضبع آيات لواتي تضبع سورة النمل آيات لواتي تضبع. قال تعالى: قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. waxaan haynay hudhudkii nabiyullaahi sulaymaan shimbirkiisii iyo asaga inay murmayeen. waxa ay noo joogtay inuu yidhi meel aadan taginan tagay. horta meeshaas waxaa laga qaadanayaa lafdigii aan soo dhaafnay oo ahaa markuu dhahayay faqaala axadtu bimaa lam tuxid bihi waji'tuka min saba'in binaba'in yaqiin. shimbir oo maalayacqila oon xataa mukallaf ahayn ayaa wuxuu ka dheereeyey nebi mursala meel uusan tegay war nabaga uusan helinoo helay markaasuu nabag u keenay. idan aqoonta alle qof kasta aqoonta alle inuu siin karo qofku doono inuu siin karo. qofka hadduu doono ha darajo hooseeyo, hadduu doono ha darajo sarreeyo, ma aha wuxuu ogyahay male in la dhaho oo la saluugo yaraantiisa iyo maya. qof kasta aqoontiisa allay la taalaa oo alla maamula. markuu yimid uu yidhi shimbirka uu yidhi waxaasaan soo arkay, wuxuu yidhi waan ku tijaabinayaa inaad run sheegayso in kale. qaala wuxuu yidhi sananduru waan fiirinaynaa asadaqta inaad run sheegtay am kunta mas inaad ahaatay min alkaadibiin kuu beenta sheeg mid ka mid ah. warkaaga inuu run yahay iyo inuu been yahay ayaan ogaanaynaa. sananduru wuxuu yidhi idhab tag bikitaabii qoraalkayga la tag haadaa oo kana fa alqih rid ilayhim ayagaas u tuur uma markaa kadib tawalla jeedso canhum ayaga ka soo jeedso fandur fiiri maadaa maxayba yarjicuuna ay soo naqayaan, maxay jawaabo ay soo naqayaan, maxay isku laablaabayaan, jawaabtooda soo dhegayso. idan marka la leeyahay humma tawalla canhum, tawalligaas ka tag maaha meel aan fogeen u fadhiiso, laakiin u dheghay dhegayso waxay soo naqayaan u jawaaba. meeshan idan waxaa laga qaadanayaa qof kasta wuxuu sheego inaan la iska qaadanin, laakiin la hubsado wuxuu sheegay. qaalad waxay tidhi yaa ayuhal malaw jamaacadanay innii aniga ulqiya waxaa la tuuray ilaya xaggayga kitaabun kitaab ayaa la ii soo tuuray, qoraal ayaa la ii soo tuuray. ilan shimbirka wuu dul istaagay, wuu ku tuuray, wuu ka tegay, haddana waa wax soo dhacay un, wax gacan lagu keenay ma aha. innahu kitaabka min sulaymaan xaggiisuu ka ahaaday. wa innahu kitaabka bismi illaahi araxmaani araxiim allaa tacluu calaya wa'tuunii muslimiin waaye. bismi illaahi araxmaani araxiim waa qoraalka bilowgiisa. allaa tacluu ha sarmarina oo dad iska kay weynaysi ha noqonina. allaa tacluu ha sarmarina calaya dushayda wa'tuunii ii yimaada muslimiina idinkoo muslimiina, iisoo xaadira idinkoo muslimiina, kibir ma ogoli. saasa ku taal. bismi illaahi araxmaan araxiim kadib allaa tacluu calaya wa'tuunii muslimiin bas. ilan khayrulkalaami maa qalla wadalla waa warqaddii lasoo qorayo dhanba intaasa ku taal. qaalad waxay tidhi yaa ayuhal malaw jamaacadanay aftuunii ii jawaaba fii amri amarkayga fiigiisa iiga jawaaba. waxaan ka dhihi lahaa
إيشيغا ما كنت أنا جميعه قاطعة متقوسة أمرا أمر متقوسة ميه حتى تشهدوني إلى أدق حاضرتان إلى حاضرتان إسو أكفر ستان ورمقو سنايو معناها معها أيضا كلي تلي معها قالوا وحيدهن نحن أنه أولو قوة حق صاحبنا وأولو بأس دقال قوة صاحبة أيانه ولو بأس غاسو شديد درن والأمر أمرك إليك أدق حقاقو أهاضي افنظري قبري هاي فيري ماذا محيبات تأمرين أطفريسا تدكاغا أمرك تسينيسو أدو أنك فيرسا بس موغيه أنك وكوهم قانسن نحيه قالت وحي تلي قبري وبالقيسة إن الملوك بغرضوا إذا دخلوا مركي قلان قرية بلد مركي قلان أفسدوا ويفس هذيان ها قرية ويفس هذيان وجعلوا وحي كيالان أعزة أهلها قرية أهل كذا كأشرف بضن أذلة كولي تيكدقان مدحذي وحي كدقان مالقبين ذي وحلي تصوحوس فرسته وكذلك سداس أيي يفعلون داد كانوا فليان بقرهذا dabeecadoodii kula ay nuga maamuli doonaan boqorada dabeecadoodii ay nugu maamuli doonaan mana noqonino markay islaamtay boqortooydeeda loo daayay waxay sheegayso dabeecad boqorada way ma ogiye dabeecadda nabiyada sidaas ma aha meesheeda loo daayay boqornimadeeda loo daayay boqortooydeeda ayaa loo daayay laakiin waxaa dhacday inuu guursaday bishiina 3 been u tagi jiray bas u iman jiray ila waa kala fog yihiin qof kasta boqortooyada waa u gaar qof kasta boqortooyadiisu waa u gaar bil kasta wuxuu soo booqin jiray 3 maalmood waayahay saasay fali doonaan cabsi qabtayda laakiin wa inni aniga mursilatun mid u dirtaanahay ilaahim ayaga xaqooda waxaan u diraya bihadiyatin hadiyo ayaan u dhiibaya فناظرة متفيرسان أهي بما ينفيرن أيا يرجع المرسلون كل الدري أي لسوالابتان حول فربضن أوليبتي ذهب إيو فضل إيو الضومن وويلي اللي قبل بدأ أدرتي ماشي مركو تغينينك إليك أها فلما وقتي جاء وتغير رسولك هو مرسلك رسولك رسول ربي ما أهي رسول الله ما هي مرسل فلما وقتي جاء وتغي كيل الدري سليمان مركو أتغي قال وحور النبي الله سليمان أتمدونني مياد السينيسان بمال حولد السينيسان ميا فما وحي آتاني الله الأسي أيا خيرك خير بدن مما كخير بدن آتاكم الأسي أصدق محل سيي نبنم إيو رسالو أي محل سيي مالي بغرطويو إذن تيدا كفضل بدنوا بل اسكبداي أنتم إذنك بهديتكم هديدين مالكين تفرحون واتكو فرحيسان مالكاس أي إذن لوين معناها إذا صادرتي dadkii markay u tageen falammaa jaa sulaymaan macnaha markay u tageen ay agtiisa xaadireen wuxuu yidhi xoolihiinaan idinku waad ku faraxsan tihiin laakiin aniga alle wuxuu i siiyey ayaa ka khayr badan wuxuu idin siiyey taasna aaminsanaahay irjic laabo ilaahim ayagu u laabo ayagaas dadku ku soo diray u laabanayahow falana'tiyannahum waxaan ula imaanaynaa بجنود عيدمو لا قبل لهم أيغاس أين أود لهين بها جنود ولا نخرجن وانكسارينا منها قرية أو أصبع ولا نخرجنهم وانكسارينا منها قرية أو أهي صبع ينكسارينا أذلة أيغو ليتا وهم أيغو ساقرون أيهن
kuwa la daraabo oo yaryar inka saarayna waa wixii ka baqaysa gabadha. qaala wuxuu yidhi yaa ayuha almala'u markii warkii uu gaaray loo sheegay inay soo socto waxaa suurto gasha shimbirka inuu u tajasusay ilaa saa socod dhowey markuu ogaaday inay soo socoto. qaala wuxuu yidhi yaa ayuha almala'u jamaacada tanay ayukum midkiineebaa ya'tiinii iila imanaya bicarshihaa gabadha sariirteeda yaa ii keenaya qabla an ya'tuunii intayna ii imanin muslimiina xaalayhin kuwa mu'miniina islaamnimadood intayna muujisinin xoolahaas ay xoolo gaala yihiin ay khaniimadooda bannaan tahay yaa iiga soo qaadaya macnaha sidaas wa. qaala cifriitu cifriid ayaa wuxuu yidhi cifriid waxa layidhaahaa jinka noociisa xooga badan oo fasaadka badanaa layidhaahaa laakiin fasaad agtiis marka lama joogo. qaala wuxuu yidhi cifriitun mid cifriida oo xoog badan oo min aljinniya ana aniga ayaa aatiika kuula imaanayo kuu keenay bihi carshiga anaa kuu keenaya qabla an taquuma intaadan ka istaagin min maqaamika qabla an taquuma intaadan ka kicinba min maqaamika makaanigadigaaga fadhiga aad fadhido aad ku negi tahay intaadan ka kicinaan kuu keenayaa. wa innii aniga calayhi carshiga dushiisa la qawiyun mid ku xoog badanan ahay amiin loo aaminay xoogan leeyahayo awood soo qaado alla isiiyey xoog ayaan leeyahay aamin waan ahayo jawaahirta ku rakiban ma faqfaqsanayo. qaala aladii kii wuxuu yidhi cindahu agtiisaba cilman cilmi u ahaaday oo min alkitaabi kitaabka ah oo kitaabka kee waayo waa min kutubillaah ana aniga ayaa aatiika kuu keenaya bihi carshiga ana aniga ayaa aatiika kuu keenaya bihi carshiga qabla an yartadda intuusan ku soo noqonin ilayka xaggaaga darfoka araggaaga uusan kugu soo noqonin anaa kuu keenaaya meel intaad milicsato aad milicsiga hood u soo dejiso halahaas yariista ayaan kugu keenayaa buu yidhi. kan hore wuxuu ahaa cifriid waa lagu diiday ninki cilmi badan ayaa yimid oo dhahaya darfatulcayn meesha uga soo qaadaya darfatulcayn aan ku keenaya. meeshani waxaa jirtaa 2 bilood meel loo socdo weliba fardo markii la saaran yahay. darfatulcayn aan ku keenayaa baa nin yidhi ninkaa kay ahaa aada laisuu khilaafsan yahay tafaasiirta badi waxay dhahaan aasif binu barkhiyaabuu ahaa laakiin daliil quman ma hayaan kulligood daliil quman ma hayaan aqlabkood daliil quman ma hayaan. waxaa la sheegay inuu ahaa jibriil waxaase kasii muhiimsanba ninkaas inuu ahaa nabiyullaahi suleymaan naftiisa inuu ahaaba. aatiika markuu dhahayana ninka dhahaaya intaadan inta ka kicinan kuu keena dhahaaya naftiisaab lagu dhahayaaba haddan agtaada keenayaa intaadan ishaada soo laabin waa nabiyullaahi suleymaan. taasa muctamada waxaa loo daliishanayaa qoolkan inta ku yaalla alla qoolkiisa dhahaya oo nabiyullaahi suleymaan uu ku hadlay haadaa min fadli rabbii liyabluwanii ashkur am akfur. taasaa loo daliishanayaa in sariirtan 2 bilood meel loo socdo jirta darfatulcayn aan ku keeno al iigu keeno waa nicmo alle. taasaa loo daliishanayaa naftiisu ahaa. dadka dhahaaya waxyaalo kale waa laga xoog badan yahay waa jiraan in jibriil qaar ay ku sheegaan qaar malag kale ay ku sheegaan qaar ay ku sheegaan aasif bin barkhiya oo ahaa israa'iili waxaasoo dhanba waxaa ka xoog badan asaga naftiis inuu ahaa. taasna waxaa qaba ninka la yidhaha mujaahid ibnu jabra oo ahaa xorowga cabdullahi bin cabaas. waayahay aniga ayaa aatiika ku keenaaya bihi carshiga qabla an yartadda intuusan ku soo noqonin ilayka xaggaaga darfuka araggaag uusan kugu soo noqon araggaag intuusan kugu soo noqoninan kuu keenaya bas wax yar wa. falamaa waqtigii ra'aa u arkay carshigii
رأوا أركي سليمان وعرشي مستقرا أصوصوا عنده أكتيس كسوغن مركو أركي قال وحيري هذا كان من فضل ربي فضل جيس أيو كمد يهي طرفة العين إنو الإيو كانوا ليبلوني قال إنو إجربه أشكر إن شكر هنا نعمة الله أم أكفر إن كوغالو نعمة الله يقول امتحانا يا إيوة من شكر قفك الشكر هي فإنما يكلمه يشكر ننكسوا شكر لنفسه يشكر وشكر هنا يا لنفسه نفتي سوء شكر هنا يا معناها شكر ثواب كيسي أجر كيس نفتي سأسكاله ومن كفر قفك قالوا فإن ربي جاي غني الله هذا نهوى كريم صوبا قفك قالوا وانا ألو كمار ما إذا أسجى نفتي صوبا ها قفك البريي واسم الأعظم البري وهذا وحال الشيء وقال ليه هي علمي أيا لسيي قال الذي عنده علم من الكتاب نفتي سوا ساسا أي كتبت معتمدات كأي شيء وياهي فإن ربي لغني فإن ربي غني الله هذا هو كريم صوبا فإن ربي كريم غني كريم الله أكبر قال النكر ماشي حبكا موقت مركز بإنه قلت شكري غني كريم تاسا تصبيح قال وحيري هذانا نكروا الدورية لها قبضان وبدل عرشها عرش هذا وبدل ننظر أنفيرين تهتدي إني هنونيسو أغلقات أفوليهي أم تكونوا مسئني أهانيسو من الذين كوا لا يهتدون أن هنونين وعب فهمين قف أقون له فهمي له دقس فهمي سنيتها إيو قف دميني ذهب بليذا إنيتها أن كلا أغاني عرشي هذا بدلا وعب على قفش فجيي نقشي يسا أيا لبدلي والهردقي إذا مقن فلما وقتي جاءت أي تمت قيل وحالوي أهكذا عرشك أهكذا ما سيدان أو كالو عرشك عرشكاغا وتشبيه سؤال معنى التشبيه وضته أي اللي سؤالي عرشكاغا سيدان مو إيكا قال ذو حيتري كأنه واحد بمودابة كان هو عرشكاغا إنو يهي طيب سؤال شان أول كذا وحو إيهام آخر كذا إيهام جوابتي ذا واي هاي ما حيقوله وايسي عرشيغيغا واي ما حيقوله وايسي ساسا دي ترى وحي كبغضي إذا مرك يكون فكرتي إن لديه دونو لابا بلد ميلو سعودو عرشيغا وجراي انت محا كيني هورتا إن لديه تاسي كبغضي هداي تراهو ما أي تراهانا وحبا مقرنيسيدة عرشيغا قرن وايسي إن لديه أي كبغضي inta yariista ahay dhan kasta ay u fikirto ay tiri kaanahu huwa maba u dheeraaninba markaasuu ogaaday nabiyullaahi suleymaan inta qoftan aqilad wa uutina alcilma min qabliha wa kunna muslimin hadalkan waxa iska leh nabi suleymaan iska leh wa uutina waxaana la siiyey alcilma ogaalana la siiyey cilmigan fikridan ida ay qabto horteed alla ayaana siiyey min qabliha horteed wa kunna waxaan ahaanay مسلمين كوا لهم كان سمي هرتيدان علم هلني إسلام من عن هلني وصدها وحا كرهبي قبضان ما أي كرهبي ومعناها إني عابد الله وصدها وحا كرهبي إسلام ماذا ما وحي كان ضيه تعبد مد عابده ومن دون الله على غير كساء إني قالوا ذي أي أدي ذي إسلام ماذا إنها أي قبض كانت وحي من قوم الريرو كافرين قالا قيل وحال ويري تنهرت وحالو سميي إني أغاتو قفك إنو النبي هاي أود استعمالان أود رباني أي تهي أن أهين أود يد أو كالي وبالك أود وين هذا تجربة كالي لسي أو لوتو سايو وحيالها أسو أغاركا قيل وحال ويري لها قوادان
udkhulay gal asarxa qasrigan gal sara loo dhisoo loo diyaariyey jinna u edeega isaga sara loo dhisoo loo diyaariyey iridka laga soo gelaayana waxaa laga dhigay mool biyaa lagu shubay malayaa lagu daadiyey kor waxaa looga dhigay sanqaaf looga dhigay marmar looga dhigay dhalo markaas iridkiiyo biyo ay ka buuxaan malayn uu dhex mushaaxaayo eel iridkan ka gal qiila waxaa lagu yidhi lahaa gabadhi udkhulay gal asarxa sartan gal falamaa waqtigii ra'adhu ay aragtay qasriga albaabkiisa xasibatu waxayba moodayba lujatan biyo mool ayay mooday wakashafad way fayday can saaqayhaa labadeeda dhudhnay fayday labadeeda dhudhunay fayday dhudhunka kii gacmaha mahee jilibka xibinta ka hoosayso labadaa dhudhun oo ah labadeed lugood ay fayday qaal markaas nabigu wuxuu yidhi innahu kani sarxun waa sar mumaradun lagu marmaray lagu ismiiday min qawaariira dhalooyin lagu ismiiday mumarad waxaa la yidhaahaa marmarka haddii kaleba mutuleelka ayaa la yidhaahaa waa sar mutuleelkeeda laga dhigay qaaruurad laga dhigay ma aha biyi ma aha biyaha waxaa macnaha kaa xigo marmar oo dhala ah mumaradka mumallas waayo oo waa ismiid haddii kale bulukeeti waxaan leeyahay haddii kale mutulayl haddii kale marmar saddexda magac waa leedaha waa la dhihi karaa haddana wuxuu ka samaysan yahay qaaruurad markaasay yaabtay labadan shay maxaa loo sameeyey qool oo kutubta israa'iilaadka laga soo guuriyey oon la cuskan karin wuxuu leeyahay jimbaa wuxuu u sheegay qoftaan inay ay leedahay qoob dameer lugaheeda inay u samaysiin si dameeraha oo kale idan suu u arko habkan u sameeyey biyihii markay aragtayna lugihii way fayda idoo lugaha fayd la dhihin saasay leeyihiin laakiin kaas waxa la cuskun kara ma aha intaan wuxuu u yeelay awoodda rabbaaniga ah ninkan uu alla siiyey inuu tuso hortiisa habkaasoo kale laguma dhaqmin ciidan ma arkin waayahay sariirtaasna maxaa loo tusay waxaa loo tusay sariir intaasoo bilood 2 bilood meel loo lugay ay taalo wiil markay ka soo tegaysa waxay kutubtu leedahay 7 guri daakhilkooda uga soo tagtay guri oo 7 guri ku dhex yaallo oo markaskeeda ahaa ilan dad maal ku dheeldheelay ahaan kuwaase meelkaasay 7 albaabi ka soo qufashay idan sariir meesha laga soo saaray meesha loo keenay warka inuu yahay war aad u weyn in lagu waaniyo waani u noqoto ay diintu ku soo gasho kadib waa soo gashay diintii qaalad waxay tiri rabbi rabbow innii aniga dalamtu waan dulmiyey nafsii naftaydan dulmiyey waa gaalnimadii ku jirtay wa aslamtu waan hongaansamay maca sulaymaana sulaymaan miciisan hongaansamay lillaah allan isu dhiibay rabbi alcaalamiina unkun rabbigiisa aan isu dhiibay walaqad arsalnaa ilaa thamuuda sheekadii bilqiis intay ku dhammaatay walaqad xaqiiqa arsalnaa waan dirnay ilaa thamuuda thamuud xaggii akhaahu macnaa akhaahu markii la leeyahay walaalkoodouba ahaa reerkoodoo ka tirsanaa reer thamuudow ka mid ahaaba akhu nasab waay moogi xataa ma aha akhu diin ma ina ay waaba diideena akhaahu walaalkooda ayaan u dirnay saalixan ahaa maxaan ula dirnay an icbudullah alla caabudaan la dirnay andan waa mufasiro an icbudullaha alla caabud ayaan la dirnay dadyahow faidaa isli waqtigaas hum ayaga fariiqaani waaba 2 kooxood yakhtasimuuna doodaya isla markii waa kala jabeen hadda yakhtasimuuna fariiqaani lafdiga tafni u ahaay yakhtasimuuna maxay tahay kooxa kasta dhowr qof waay waa dad badan
dhinacan dad badan dhinacan marka waa jamacba yakhtasimuuna doodaay qaala wuxuu yidhi yaa qawmi qaraabo yaa qawmi lima tastacjiluuna bisayi'a lima maxayba tastacjiluuna aad u degdegsiin dalbaysaan bisayi'ati xumaatada maxaad u degdegsiin dalbaysaan qabla alxasanati wanaaga ka hor ayaga waxay ku noqnoqon jireen faatinaa bimaa tacidunaa waxaad sheegaysa la kaale cadaabka la kaale markaasuu dhahaya degdegtaan iska dhaafa wanaag horta ku dhaqma lowlaa tastakfiruuna allah alle maad dembe dhaaf weydiisitaan lacallakum mudnaantiina turxamuuna in le'da naxariisa inaad naxariis heshaana laga yaabaaye istikfaarta mar aadaan istikfaarta maad aadan awal mar istikfaarta maad aadaan qaaluu waxay dhaheen dayarnaa waan baasaysana bika adam ku baasaysan adam ku nacnayba wa bima macaka iyo kuu kula jiro adiga iyo inta kula jirto ayaan idin dhibsanayba qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi saalix qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi saalix daa'irukum baaskiina cinda allaah alla agtiisa u ahaaday alla idin haya baas oo waad dimbaawdeen alla agtiisa dembi unbaa idin yaal bal iskama daaya antum idinka qowm ayaad tihiin tuftanuun lala imtixaanayo barwaaqadaan la idin siiyey waa imtixaan ilaan wanabluukum bishari waalkhayr bu alla yidhaya shartana waa fidno khayrkan waa fidno idan khayrkan aad wadataan ha moodina barwaaqa la idinla soo maaga inay tahay wa kaana waxa ahaa fi lmadiinati magaalada waxaa ku dhex jiray oo joogay tiscatu rahdin sagaal koox ku kooban tiscatu rahdin koox sagaala koox tiradeedaba ay sagaal tahay yufsiduuna fasaadinayo fil ardi dhulka fasaadinayo walaa yuslixuuna aan suubinaynin qaaluu waxay dhaheen ayagiyaa is arkay tashaday taqaasamuu isdhaarsada billaah alle isku dhaarsada magaciisa waaba gaale allen way ka sayaanoo laakiin alle wax u yeelayaan kaaliyaal badan alle isku dhaarsada lanubayitannahu inaan mirayno asagaas iyo wa ahlahu reerkiisa inaan mirayno aan isku dhaarsanno tuma markaa kadib lanaquulanna waxaan leenahay liwaliyihi asaga weligiisa ahelkiisa qaraabadiisa oo u soo hilisa waxaan ku leenahay maa shahidnaa ma aana xaadirin mahlika ahlihi reerkiisa halaagiisa ma aana xaadirin maba jooginba meeshii lagu weerarayay ninkan aan dhahaynaa wa innaa annagu la saadiquun kuwa run sheegaayo ayaan nahay waxay ku heshiiyeen gurigiisa in la weegaaro asagoo macal ilmihiisa o dhan dab laga dhigo hadhowna ay dhahaan waxaan waxba kama ogin ayagoo fikraddii qaba gurigii soo weeraray hareeraha ka fadhiya dabxir ku sameeyey ayaa waxa ku soo daadatay dhagxaan meel laga soo ganay aan la garanayn mid kasta dhagax u gaaraha qabtay meeshay ku dhammaadeen kulligoodba waa makaruu way dhagar sameeyeen makran dhagar samayn nabaga ay dhagar u maleegeen waa makarnaa waan dhagarnay makran dhagarnay oo dhagartoodan u jaazinay waay wahum ayagoo laa yashcuruun aan ogeyn ayagoynu ka warqabin ayaa laga argoostay naftooda la dhameeyey fandur bal fiiri kayfa sida kaana ay ahaatay caaqibatu makrihim tafaasiir kale waxay leedahay ayagoo ku shiraayo buur hoosteeda isqarinaayo ay buurta ku duntay laakiin dhagaxaas xoog badan liannahu buurta ayaga unbaa deganaa ahal lama deganan soo maaha laakiin dhagax macal ahalkooda lagu maasheeyey fandur bal fiiri kayfa sida kaana ay ahaatay caaqibatu makrihim dhagartooda ajarkooda caaqibadiisa ciribtid bal fiiri annaa anagu damarnaahum ayagaas ayaan halaagnay wa qowmahum reerahoodan waan halaagnay ajmacina dhammaanba damarnaahum wa qowmahum ajmacina dhagxaantay u dhowdaa fatilka midda buyuutuhum waa guryahooda khaawiyatan xaalay tahay mid maran oo eber ah bimaa dalamuu dulmigooda darti ay bisababi dulmihim
dulma wadaraadiisa guryahoodan xataa ay la kharibmeen. inna fii daalika kaa waxaa ku sugan la aayatan calaamad ayaa ku sugan loo daliishado al awoodiisa iyo xooggiisa liqowmina ugu sugan tahay yaclamuuna og oo wax garanayo. wa anjayna aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun nabiyullaahi saalex dadkiisa waa la badbaadiyey. wa anjaynaa waan badbaadinay aladiina dulki aamanuu rumeeyey waan badbaadinay oo wa kaanuu ahaa yattaquun ku alla ka baqa. wa luudan ay wa anjaynaa luudan badbaadinay nabiyullaahi luuda la galay haddana sheekadiis. id waqti ayaan badbaadinay qaal uu yidhi liqowmihi reerkiisa uu ku yidhi ata'tuuna mayaad la imaanaysaan alfaaxishata tii foosh xumeed mayaad la imaanaysa oo ah ragga dabadaysin wax laga dayo. wa antum idinkoo tubsiruuna arkaya idinkoo u jeedo maad u barartan xumaantaan. ay innakum idinka la ta'tuuna mayaad u tagaysaan arrijaal ragga mayaad u tagaysaan shahwatan shahw darteed idinka damaac idinka hayo weliba min duuni nisaa naagaha ka soke aad ishtahaynaysaan mayaad u tagaysaan. bal iska badaaye antum idinka qowman qowm ayaatiin tajhaluuna jaahiliina. allahu subxaanahu wa tacaala aclam.